يزال الخير حيا لا يزال إن في الدنيا سلاما وظلال أخبر الأيام أنها في وصال قم بنا وانظر. halkan waa isgoyska fagaca ee magaalada Muqdisho si aad aragtaan dadkan waxa ay ku dib baxayaan madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxay ka gadoodsan yihiin dadkan ay diidan yihiin madaxweynaha loo sameeyay madaxweynaha Farmaajo bilaabay telefishinka farsa laga daawanaya maxaa ka dib baxaysa waxa ka dib baxana farmaajo midoodeedo inta kale mushaarkiisu oo bixi waay shalay wuxuu dhan mushaar jiro farmaajo diyaarna sooba kiima soobe maxaa ka dib markii baramba oo dib baxana hadda waxay ku sii jeedaan isgooska Sanco halkaas waxa ku sugan ciidamo ka tirsan booliska Soomaaliya waxa suuragal ah askartan hadii dibadbaxyaashan hadii halkaas ay gaaraan inay iska caabin ay kala kulmaan booliska gobolka Banaadir hayeeshii aaga ay hadda ku soconayaan waxa gacanta ku haya ciidamo ka tirsan militariga Soomaaliya kuwaas oo ka gadoodsan muddo kordhinta loo sameeyay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo dhameystay muddo xileedkiisa sida aad kartaan dhamaan gaadiidkan waxay ka tirsan yihiin kuwa ka gadoodsan muddo kordhinta halkaas oo ay qaarkood ay leeyihiin waxa ka sugan ciidamada booliska suuragal ay tahay inay caafimaad kala kulmaan waxay xirayaan isu socodka dadka isticmaalaya wadadan ay diidan yihiin dadkan sidoo kale
qaar ka mid ah dadka dibadbaxan wada dadka dibadbaxaya waxa ay diidan yihiin in la adeegsado wadadan ciidamada gaduudka sameeyay aad arki kartaan وحية هاي عثمان لا مرة من هيك لا اللي حلف خفين قاعد سؤالتان mid ka mid ah gaadiidka dagaalka wataan ciidamada ka gadoodsan xukuumadda loo sameeyay madaxweyne farmaajo saacadu waa soo socdaa daba gudnaa ciidamo military ah ayaga lugeeya meel la halay waa mid ka mid ah saraakiisha hogaaminaysa ciidamadan ka gadoodsan muddo loo sameeyay madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo halkan waa isgooska fagax dibadbax ayaa ka socdo si lamid ah waxaa ku sugan ciidamo military ah oo ka gadoodsan muddo kordhinta madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo waxaa sidoo kale jirta saraakiil kale oo ka tirsan ciidamada gadoodka sameeyay iyagana waa ay hadli doonaan gaadiid dagaal oo military ah ayaa sidoo kale jidadka soo gala wadadan ku jira waxaan ku sugan lahay qayb ka mid ah sidoo kale inta u dhaxaysa sano waxaad arki kartaan gaariga loo yaqaan cabdilaha waxa saaran
سكان هجامين المدكتور اللي سميين مدحوير محمد عبد الله farmaajo mudada labada sano ee baarlamaanka golaha shacabka sameeyay sidoo kale sarkaalkan waxa la sheegay inuu ku tirsan yahay guuta afraad sida ay dadka qaar noo sheegeen waxa xiran guud ahaan xaafadaha soo gala isgooskan inta u dhaxaysa isgooska fagax iyo sanco ujeedkuna wuxuu yahay ciidamada ay ka gadoodsan yihiin mudakordhinta loo sameeyay maxamed cabdullaahi farmaajo oo ah madaxweynaha wixii warar uu ku soo kordhaa istoosa waxaad kala socon doontaan telefishinka Universal iyo qeybihiisa kala duwan ee baraha bulshada